cadowgeedu ha jabo cadowgeedu ha jabo runtii waa maalin aad iyo aad u qiimo badan anigoo ku hadlaya jaaliyadda Somaliland ee UK waxaan rabaa inaan u mahadceliyo inamadan qaaliga iyo hablahan soo abaabulay xafladan quruxda badan iyagoo aan cidnaba taageero aanay ka helin oo ay jeebkooda iyo xoogooda iyo waqtigoodaba ay geliyaan waxaynu u baahanahay inaynu inamada taageerno iyo hablaha qiimaha badan ee maalin kasta inoo soo abaabulaya xafladaha quruxda waxa iyaguna halkan maanta nin halkan waxa igu yimid nin isaguna ka socda dalka Israa'iil wuxuu yiri waxaan jeclahay inaan Somaliland u hambaliyeeyo welcome to television Somaliland television. Thank you. I'm happy to be here. What's your name? My name is Simon. Well, I'm very happy that the people of Somaliland have announced their own homeland. I'm happy that it's receiving international support from Israel, and you know, I think it's good that the type of government and system that you want to live under. waan hambaleynayaa dhammaan shucuubta reer Somaliland meel kasta joogaanba dalka iyo dabadiisa waxaan si gaar ah u hambaleynayaa dadweynaha halkan isugu soo baxay iyadoo ay maalin shaqo tahay haddana dadaal badan muujiyay inay shucuurtooda soo bandhigaan oo campaignkii aynu halka ka sii wadno halkan waxaan uga mahadcelinaynaa dalweynihii ugu horeeyay ee aqoonsada oo ah dal dunida saameyn badan ku leh oo saameyn siyaasadeed ku leh بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Shucayb Daahir Yuusuf waxaan halkan aad iyo aad uga salaamayaa dhammaan jaaliyadda reer Somaliland ee caalamka ku kala nool maanta waxaan u dabaaldegaynaa ictiraafkii aynu ka helnay ama wadankii ugu horeeyay in ictiraafay Israa'iil aad iyo aadna ayaan ugu faraxsanahay farinta kaliya aan halkan uga diraynaa filla wardhigle waxaanu leenahay Somaliland way socdaashay samada dusheeda iyo xidigaha ku socotaa soo noqon mayso ee waxaanu idin leenahay xas sheekhna waxaanu farinta u diraynaa waxa weeyaan waxaanu leenahay xasalaax naas ku dhan ninkii gagaxshaa tahay qodobka koobaad waxa weeyaan a message for the Somalilanders referencing Mr. Eid oo hawsha in badan ka soo shaqeeyay from 2011 iyo 2021 the census of the Somaliland identity has been recognized. So can you please give this gentleman a round of applause? We exist and we existed before. The history of Somaliland began way before the British arrived in the shores of Somaliland. We had the states or the sultanates of Ifad, Adal, Kabadi, Mahadai, British Somaliland for 75 years. After that, in 1960, Lihya Labataki June, 26th of June, we had independence from Britain. And 1st of July, we attempted, remember the word, key word is, we attempted. We tried to unify the Somali-speaking people in the Horn of Africa. dabaaldegi iyo fantasiya asaas u socda aad arkaysaan shacbiga reer Somaliland oo iyagu ku faraxsan ictiraafkii ay ka heleen dawladda Israa'iil bal haddaba dumarkii imika ayaa iyaguna halkan taagan waxaan jeclahay bal iyagana inaan weydiiyo ugu horreyntii adigoo magacaaga ku bilaabaya magacaygu waa Nuuro Ciise Omar maanta waxaan ku suganahay baarlamaankii bonus number 10ka halka waxaan isugu nimid inaan dawladda Ingiriiska aan u sheegno inaan maxaan ku raacno xaq u leenahay waxaan xaq u leenahay taariikhdeeda aan la bedelin insha Allah iyaguna inoo maqayn waan noo soo bixin waan ku hambaliyeen insha Allah bidnillaahi kariim waan faraxsanahay insha Allah waxaan rajaynaa dawladdeena Somaliland oo cagaheeda isku taagtay waxaan leeyahay dadkeena reer Somaliland meel kasta joogtaanba is ogaada iska warhaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ciid mubaarak maanta waa maalin ugu weyn 14 January ictiraafkii baan u dabaaldegaynaa waxaan aad ugu salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland madaxweynaha ictiraafka Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi madaxweyne ku-xigeenka Maxamed Cali Aw Cabdi wasiirka arrimaha dibadda Cabdiraxmaan Daahir Aadan golayaasha qaranka saddexdaas baqaran Somaliland guul iyo gobolnimo waxaynu sugaynay waa arrin aynu sugaynay muddo fara badan oo aynu u soo galnay halgan dheer oo dad badan naga shiideen maantana mar haddayna aqoonsatay waddankii u horreeyey oo dawladda Israa'iila waxaan leeyahay dadkeena reer Somaliland yaan la idiin baqa gelin dawlado fara badan oo islaama
ayay la leeyihiin xidhiidh waa dad ehlu kitaaba waxay wataan oo ay kuway naga soo horjeedeen faqashku wadataa shiinaha oo aan mushrikiina oo aan waxba caabudin waa tahay dabaaldeggiisa ayuu weli u socdaa iminkana jaaliyadda ka timid iyagu magaalada liverpool ayaan jeclahay halkan iyagana inay adhahdooda iyo fantasiyooga ay ka dhiibtaan maasha allah tabaarak allah de maanta waxaa insha allah waata laysugu yimi aqoonsigii somaliland loo dabaaldegayo in london downing street insha allahu tacaala uk will be next haddii la yidhaahdo dhammaan horta waxaan salaamayaa qaranka reer somalilan meel kastoo ay joogaan guda iyo dibadba gaar ahaan waxaan sii salaamayaa dadka reer somalilan oo gudihii jooga intaanan hadalkayga furu waxaan ku boorinayaa reer somalilan cadow fara badan baynu leenahay dalka in la ilaaliyo wixii soo gelaya in la ilaaliyo guryaha la seexanaya in la ilaaliyo dadka jaararkiina in la ilaaliyo wax allaaliya wixii waddanka gudihiisa soo gelaya in si khaasa loo ilaaliyo taasaan dadka reer somalilan marka hore aan ugu baaqaya insha allahu tacaala waxaa maanta laysugu yimi somalilan dabaaldeg u dhacaysa oo waxaanu ka soo horjeednaa downing street oo meeshii lagu xukumayey ingiriiska waxaanu ka codsanaynaa aqoonsiga inay noqdaan waddanka labaad ee somalilan aqoonsada halkan waxa aan kula kulmay suxufi cabdilaahi maxamed cali oo isagu ka mid ahaa telefishinka qaranka jamhuuriyadda somalilan hore uga mid ahaa welina dee isagu ka mid ah waxaan jeclahay bal inaan isaguna halkan maanta ka qayb gelaya inuu bulshada reer somalilan ee halkan joogta isaguna uu hadalkooda gaadhsiiyo adduunka ayaa halkan ila taagan cabdilaahi maxaad odhanayd maanta daahir aad baan kuu salaamayaa adiga iyo guud ahaan shacbiga somalilan meel ay joogaanba waxaynu ku faraxsannahay maanta waa guusha weyn daahiro waxaa la moodaa in la soo gunaanadayo bannaanbaxyadaynu samayn jirnay ee ahaa somalilan hal la ictiraafo inay soo gebagaboobayaan halkan waxaa in badan laysugu yimid tiyo farriin la dirayo somalilan in la aqoonsado maanta aqoonsigii u dhacay kuwo kalena way ku soo daba jiraan dee farxadda waad dareemi kartaa sida dadka reer somalilan guda iyo dibadba ay u faraxsan yihiin daahiro wax la soo koobi karaya maa runtii anigana farash waxay tahay maxaan ku rahay farxad iyo raynrayn bay ii tahay maanta waxaannu joognaa westminster downing street number 10 oo aannu u dabaaldegayno ictiraafkii somalilan ee nagu qaatay 35 sannadood halgankii naf iyo maalba lagu waayey ee ay nagaga dhinteen in ka badan rubuc milyan ayaannu maanta u dabaaldegaynaa kan ku dhan jaaliyadihii magaaladan dalkan boqortooyada ingiriiska markana waa magaalada birmingham magacaygu yahay khaalid cali axmed runtii maanta waa maalin weyn dhammaan qaranka jamhuuriyadda somalilan waxay u tahay maalin weyn waxaannu ku faraxsannahay in dalka somalilan uu qayb ka noqdo dalalka adduunyada oo muddo aad u dheer iyada oo la sugaayey ictiraafkaas asalaamu calaykum waraxmatullah aad baan idiin salaamayaa reer somalilan meel walbay joogaan maantaoo kale waxay xasuusinaysaa maalmihii ma garanaysaa ee loo soo halgamay somalilan faamiligayga badankiisii baa ku dhintay hooyaday abtiyaashay ilaahay u naxariisto guul baynu taagannahay halkaas baynu ma garanaysaa halkaas iyo in kaloo in ku darno waxaa isagana halkan aan kula kulmay wasiir hore cadarre oo isaguna maanta ka soo qayb galay jaaliyadaha reer somalilan oo halkan ugu dabaaldegaya ictiraafka ay ka heleen dalka israa'iil sacaadatul wasiir maxaad odhan leh marka koowaad ilaahay baa mahad leh mar labaadkana dhallinyarada Somali Alliance UK ee qabanqaabadan xafladda soo qabanqaabiyey ayaan u mahadnaqaynaa xafladdani waxay isugu jirtaa dowladda Ingiriiska oo ay shacabka reer Somaliland UK citizenskiha ay dareemayaan inay hawshoodu gabeen looga baahan yahay sida ay ballan qaadeen in ay noqdaan dowladda labaad ee ku dhawaaqda aqoonsiga Somaliland maadaama looga horreeyey halkaa waxaanu leenahay shacabka reer Somaliland ee UK citizenskihi codkooda haddii aad prime ministerku uu codkooda dhegaysan waayo
hadhow yaanu eersani taas waa qodob aad iyo aad baad u mahadsantahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta waa maalin weyn waa maalin aynu u dabaaldegayno sidii aqoonsi Soomaaliland ay uga heli lahayd dalka Ingiriiska oo aynu sugaynay muddo aad iyo aad u dheer marka waxaan leeyahay dadka reer Soomaaliland ay isku duubnaadaan meel kastoo ay joogaan gudaha iyo dibadba midnimadeennu waa muhiim Soomaalilandna waa cadceed aan sacab lagu qarin karin maanta waxa weeyaan dabaaldeg dawlado badan baa soo socda dadweynihii way ogaadeen Soomaaliland waxay tahay dad maasantahay shaqale iyo TV-ga qaranka maanta way idinkaan arkaya ummadii reer Soomaaliland wadanka Britain deganayd waxaanu iskugu soo baxnay iyo taageerayaashii baarlamaanka ku jiray iyo dadkii dawladda ku jirayba inaan halka ku muujino farxad iyo rayn iyo bogaadin inaan adduunyada tusno in Soomaaliland tahay wanaag u soo kordhay mandaqada iyo dunidaba muujin karin codkeenana inuu meel fog gaarsan karo nabigu calayhi salaatu wasalaam iyo diinteenu waxayna amartay qof kasta oo kula dhaqmaya dibna aan ku geysanayn inaana dhibaatayn diintuna way ogoleed in laga qaato oo loo ogolaado inay trade laga sameeyo nabigana calayhi salaatu wasalaam uu la sameyn jiray trade aayadda la doonayo in si khalada loo isticmaalo walan tarda canka alyahuud wala nasaara bal baa la qaatay